بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين bulshada Soomaaliyeed meel ka soo joogtiin jumca mubaaraka noloshiina nolol macaan badan oo amni iyo amaan Allah ka dhigo xalayto waxaan dhageysanay kulankii golaha wada tashiga qaranka ay ku go'aaminayeen dib u dhigida doorashooyinka dib u dhigidaasi duruuf keentay haba yaraatay inaanay jirin oo ay suuragal ahayd iska dhaaf 25 bisha 10keeda iyo 15keeda in lagu dhamay karo ayaan aaminsanahay doorashooyinka amba maaragtay habka ay arrimuhu u socdeen hab aad iyo aad loo dadajin karo ay ahayd maalmaha qaarkood waxa dhacaysa in doorasho la qaban deegaanada qaarkood in la iska dhaafaaba dhacaysa wixii dib la iska dhigo waxa soo idin wax qaranka Soomaaliya u danaynayo ma aanay ahayn waana ka xunnahay waxaan uga xunnahay doorashooyinka daahooda waa dalka meesha uu joogo wax gaarsiin dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan nolosha aad iyo aad ay u adag tahay doorashooyinka waxa loogu talagalay inay hoob abuuraan rajo abuuraan hogaan cusub oo sidii wax lagu wada wax ka gadisan keeno inay abuuraan in dalka iyo dadka Soomaaliya rajo iyo ismaatin iyo wada qabsi iyo maanta iyo birita inay shayta ka wanaagsan yihiin inay dareemaan intaas oo idil waxa dhaawac weyn gaarsiinay dib u dhici ballaaran ee sanadka dhaafay aba dib u dhigid ansaxe dib u dhigid ballaaran ee sanadka dhaaftay doorashooyinka dib loo dhigay marka waxaan leenahay doorashooyinka inta ku filan intii dib loo dhigay waa inay doorashooyinku dhacaan oo la dedejiyo oo haddana muddo kale aan lagu sii kordhin aadna waa ugu xunnahay arrinka xalayta soo baxta marka halkaas uga baxo waxaan rabaa xildhibaanka Soomaaliyeed meel ka soo joogo in aan xasuusiyo maalin ba talada qaranku qof bay la simanta amba qolay la simanta xaaladna way ku suganta maanta talada Soomaaliya madaxweyne lama sino oo xilkiisi waa dhamaaday xukuumadna lama sino oo waa xil gaarsiin waxay la simantahay xildhibaan Soomaaliyeed oo asagu keeni karo isbedel intii la doono ah hay'adaha dastuuriga ee dalka uu leeyahay xildhibaan baa laf dhabar u ah rabitaankiisa iyo codeyntiisa ayaa lagu tagaa madaxtooyada rabitaankiisa iyo codeyntiisa ra'iisul wasaare ku noqda magacaabida kadib rabitaankiisa iyo codeyntiisa golaha wasiirada ku soo baxaan ugu horeyn waxa koobaad ee loo baahan yahay waxa ay tahay xildhibaankaas inuu xurmo leeyahay tixgelin leeyahay noqdo nin aan la qasbaynin la xurmaridaynin la handadaynin waxay soo gaarayso deegaan hebel maahayna deegaan kale ha tagin qof hebel maahayna qof kale ha u tagin maxaan ku yiraahdaa waxyaabo badan handadaad qofka caadiga ku noqon karo laakiin xildhibaanka meel ka dhacay ku ahaan dad kale ku ah inay socdaan waxaan leeyahay maantay oo codkaaga loo baahan yahay haddii hay'adaha qaarkood gaar ahaan kuwa xilligoodu dhamaaday ay isku dayaan inay ku caburiyaan markay codkaaga helaan waxa kugu dhacaya ayaa ka daran waxaad noqonaysaa qof aan cad ka noqon karin isbedelka Soomaaliya ku socoto waxaad noqonaysaa qalooca qof aan qaban karin waxaad noqonaysaa wanaagga qof aan ku riixi karin waxaad noqonaysaa sidii baarlamaankii hadda xilkiisu dhamaaday mid wixii la doono la marsado oo si uun loo dardaro marka waxaan leeyahay miisaanka ugu horeeyo oo aad wax ku miisaamaysid in qadarin iyo xurmad iyo xushmad lagu haayo oo aad qayb ka noqon kartid muhiim ah isbedel qaranka Soomaaliya ku yimaado baritan aad 4 sano soo socoto cudud ku lahaanaysa baarlamaanka waxa miisaan ah oo aad ku garanaysaa xurmada madax banaanida qadarinta iyo weynaynta ay ku sameynayaan hay'adaha kala gedisan meesha xurmad darro ka dareentid waa xurmad darro qaranka la damacsan yahay gaashaan ku dhufo waa aad sameyn kartaa aad iyo aad u mahadsantihiin